qaar ka mid ah aflaamta Kajol ay iska diday. Soo dhawow daawade mar kale, waa anigoo ah Axmed Deeq Xasan. halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame. nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. mahadsanid. waxaa jira jilayaal fara badan oo mararka qaar iska diday sheekooyin loo soo bandhigo si ay u jilaan filim ahaan, kuwaasoo marka ay diidaan kadib noqda filimaan waaweyn oo guulo ka gaaray. haddaba jilayaasi oo rag iyo dumarba leh waxaa ka mid ah Kajol. waxaa jira dhowr filim oo ay iska diiday in ay jisho kadibna noqday aflaam waaweyn. waxaa ka mid ah Vezara. Daaraktar Yash Chopra marka uu qoray sheekada filimkan wuxuu jeclaa Kajol in ay la samayso Shah Rukh Khan, balse Kajol ayaa iska diday oo u aragtay in aysan munaasib ku ahayn sheeko noocan oo kale ah, waxaana lagu beddelay Preeti Zinta kadibna noqday filim guulaystay. Dil To Pagal Hai. mar kale Yash Chopra ayaa Kajol u soo bandhigay in ay caawiye ka noqoto filimka Dil To Pagal Hai, laakiin Kajol ayaa tiri marabo doorka caawiyenimada, waxaana lagu beddelay Karishma Kapoor oo ku qaadatay abaalmarin. Muhabbateyn doorka Aisha Wariyarey ay ku jilayso waxaa lala rabay Kajol oo loo bandhigay Shah Rukh Khan ku qanacsanaa in ay u madsho, laakiin Kajol baa diiday. sidaas ayaa Aisha Wariyarey loogu wareejiyey doorkeeda, filimkana blockbuster ayuu noqday. Idiot. Kajol waxay ahayd dooqa koowaad ee Raj Kumar Hirani filimkiisa majaajilada iyo fariinta waaqiciga ah ee waxbarashada ka hadlayo. Kajol ayaa u aragtay in filimkan wax badan aysan ku lahayn, keliya ay ku jilayso Amir Khan saaxiibadiisa. kadib waxaa la siiyey doorkeeda Kareena Kapoor, kaasoo noqday aflaamta Kareena ay samaysay kuwooda tixgelinta leh. Shakti Tebower. kaalinta Karishma Kapoor ay ku jilayso filimkan waxaa marka hore lahaa oo uu isku diyaarisay Kajol, balse muddo kadib ka baxday mashruuca, iska markaana lagu beddelay Karishma. warar xan ah ayaa sheegayay in xilligaas uu u diday ninkeeda Ajay Devgan. Jalte Jalte. filimkan oo sheekadiisa ahayd sheeko jacayl oo dhex marayso haweeney dabaqda sare xagga nolosha kaga jirta nin dabaqada dhexe ah, ayaa diday Kajol in ay jisho, kadibna Rani ayaa qaadatay mashruuca. taageerayaasha Kajol ayaa isweydiiyey sababta mashruucan muhiimka ay u diiday Kajol. Dilse. way ka shalaydaa ilaa maanta markii ay ku gacan seertay oo iska diday in samayso doorka Magna ee Manisha ay ku jishay filimka Dilse ee uu daraktarka ka ahaa Mani Ratnam. Kabhi Alvida Na Kehna. filimkan oo Karan Johar leeyahay waxaa la sheegaa diidmadeeda in ay la xiritay isku dhac Ajay iyo Karan Johar ka dhex jiray. Khamoshi The Musical. Sanjay Leela waa daraktarka filimkan ayaa u tegay Kajol si ay jilaa ugu noqoto filimkiisa, se waa ay diday. sidaa aawadeed waxaa fursadaas ka faa'iidaysatay Manisha oo ilaa hadda lagu ammaano doorkeeda. Gadar waxaa loo soo bandhigay filimkan Kajol, laakiin way diiday, sababteeduna waxay ahayd in aanay u malaynayn inay ahayd wax ay rabtay. sheekadaasi Kajol khasaaraheedu waxa uu ahaa faa'iidada Ameesha Patel, waxay iyada ku heshay jacayl iyo qadarin badan. Kajol haddii aysan diidi lahayn aflaamtan qaar ka mid ah, waxay ahaan lahayd libaaxada Bollywoodka. waxay khasaarisay aflaam badan. midda kale, aflaamta ay diday badankooda Shah Rukh Khan ayaa jilaa ka ahaa, sababta waa Ajay ayaa la leeyay oo u diidanaa la shaqaynta Shah Rukh Khan iyo Yash Chopra. haddii aad ka hesho muuqaaladeenna fadlan nagu dhiirigeli legtaada channelkeennana ku soo biir, siina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. waadna ku mahadsan tahay tixgelintada.